طلبة العلم وجود أنا أقدر منه وأتجرد للحق قفك إنه حق أتجرد وحي أتقرتي إلهي كفهم سيه سبحانه وتعالى إن أتكو أتكاته هوذا النفط هذا أنا أتكهر مريس وحيا بدنا النفط جعش هاي وحلقة يابا وح حقي خلاف سن إن نفترض أي جعلاته ظروف أرمجر أول حقها كسر يا مروه حق تجرد وحا صورة قال قفها جعليت قلبي قال كوينا إنه حق خلافه ماها إنا تراهو هبل هدو حق خلافه أنا قلنا هبل عن راعي صح ما ديننا ما هبل اتباعكم لها اتباع وحقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قف والبو الرسول كسوهر عليه الصلاة والسلام هذا الكيس والله قاتا وانا لرديا وحيس حقه وكوافقنا والله أقبله وحو حقه خلافنا وانا لرديا عدو دونها هذا كليه وحا الله كلا قادا حدو قف كاسي خلدمي ويهي عالم السنة احترام كيسي مقام كيسي أيضا للدوري أي خطأ يسنى لرديا هدي وياهي نمرك هرب صاحب بدعاء هانا هذا أصيغ يا مخالفته لا يمدبا أو ليس كرامة لهين لبضوبا والله سلطوريا لكن مروى الله خطر ومردود عدو دونها كيما وحيابها الدعوة السلفية أيوجد وانتهى هي دعوات كمخالفة وحاكمة إن يصن لهين أمير يقائد قونية أو بيعك قاضي أو طاعده يكون طاعده سوء واجب بتاع سيدا أورورada inta badan ay u dhisan yihiin qaa'id maraha ka sokeeya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay ku walaaloobeen isku raadsadaan isku xiriiriyaan qof walba inuu raacay dariiqi rasuulka alayhi salatu wasalam ala fahmi salaf salih alkitab was-sunnah ala fahmi salaf al-umma intaas isku keenta qaraabanimo gaarana isku ma keenin xiriir ururnimo oo ka dhaxaysana ma jiro أما عربي هالنقطة أما عجمي هالنقطة أما أسود أما أبيض نوع ضناها وحمد أيوة منهج اعتقاد قفك عقيدة صحيحة خلافة هذا وحي مركه هراء لقوا ولا لقوا وكتري أصير خلافة وكله لقوا راعي مايو وأنا لقوا ردينا يعني إن مركه قف معينة أما شخصية laga dhiga ramzi la fiirsado la eegto dadka si gooniya loogu itixaamo la yiraahdo hebel hadaad waafaqsan tahana ahlan wa sahlan hadaad hebel khilaafsan tahana wax soo dhaweyna iyo wax xiriira yeelan mayno taa ayada manhaj salaf ka tirsaneen oo khilaafsan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wuxuu leeyahay hada aad u qiimo badan وحير من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قفك وحير قف سوتايا شخص معين شخص قاسعد دونها هذا شخص قدرتي وحكو حريريه أسقدرتي وحكو الله تمام أي يراهد هذا الكيس قفك وافق أي فعل كيسنا وان حريرنا يا فعل كيس هذا الكي وحي خلافنا وقوينا يا قفك يراهد وحكم يذهبوا يركب الدين كودا كلا جاي شيعي فرقنا النقضي قال هذا سو كم يذهب ووحي أحزاب اللي قد جاي إلى أن أضرارته ورب إليه وحكم إذا تعصبك حيوان اللي قد جا وحكم إذا تعصبك إيا ولا إيا براء ضيقه ضد جار السي مسلمينتي كلام لغا غارنو قفك طالب علم وحرم اسكيلال كن متجردا للحق نقو قف حق التجرد ماشو كاجر باد الحق وضالة المؤمن قفك مؤمن كوحا كما وحق حق هدو زيد لجرو يا هدو عمر لجر بادو حق الرادي مذاهبته وحاو مشهور سن افر مذهب سيده معروف كان هذا أهل العلم وحي كديان إن الله تعصبه مذهب معين
oo aad tiraahdo anigu shaafici baan ahay maalan, wuxuu shaafici yidhi ama madhabka shaaficiyada uu qabo ayaan qabaa jumlatan wa tafsiilan, sax ma ah. sida qaarkood ay yidhaahdeen ana shaaficiyun maa xayiitu wain amut fawasiyatii linnaasi an yatashafacuu. anigu shaafici baan ahay, haddaan noolahay haddaan dhintaba shaaficinimaan ku dhimanaya, dadkana waxaan u dardaarmayaa in shaaficiyo la noqdo. xambaligii asigana gooni uu istaago wuxuu yidhi ana xambaliyun maa xayiitu wain amut fawasiyatii linnaasi an yataxambaluu. dadkuna xanaabila ha noqdaan. maalikiga sidaasoo kale meeqa diin baan leenahay, diinkeen waa waaxid. a'imadaasi mujtahidiin bay ahaayeen, way dadaaleen, jazaahum allahu khayra. laakiin ogow adiga itibaaca kugu waajiba, ilaahay kuguma waajibin inaad shaafici raacdo si gaara, inaad maalik si gaara u raacdo. ibnu rajab raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay sidaasoo kale almucallimiina waa yidhi hadalkaa hadal la mid ah. wuxuu yidhi imaamka mujtahidka ah markuu ijtihaado ee uu gafo asiga waa ma'juur, laakiin ninka taqliidaya waa ma'zuur wey, waa dembiile. inaad tiraahdo hadhowta aniga shaafici baan raacay, cudurdaar ilaahay agtii kuma aha. maxaa yeelay shaafici imaam mujtahida buu ahaa, xaqi buu raadiyey, waa dadaalay, sidaasay ula muuqatay. laakiin adiga xaggee ahday? adiga shaafici baad ku xiratay, xaq maadan raadin, mutajarid lilxaq ma noqon, shaafici keliyaad fiirsatay. adiga dembiilaa tahay, shaaficina waa macjuur xataa hadduu gafo. maxaa yeelay mujtahidku hadduu gafo hal ajar buu leeyahay, dembigiisuna waa maqfuur. hadduu asiibana laba ajar uu leeyahay. laakiin adigu labada mid adigu wax ajara ma lihid, bal dembiilaa tahay. maxaa yeelay xaqi ma raacin ee waxaa taqliiday imaam a'imadii ka mid ah. waxaa cajiiba marka